بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan oo wacan walaalaha sharafta la meel kasta aad joogtaan barnaamijkan waa qaybtii saddexaad ee aan uga hadli lahayn qisadii dajaal walaalayaal sidaad ogtihiin waa bini aadan ilaahay abuuray kii ugu shar badnaa weeye waana qof ilaahay abuuray ma ahan wax kale oo mataqaanaa dib laga abuuri doono ama nooc kale ka samaysan haddaba maanta waxaanu ka hadli doonaa nin looga shakiyey dajaal oo la oran jiray ibnu sayaad wuxuu ahaa nin ku nool magaalada madiina ayuu ku noolaa waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaamna nin yar ayuu ahaa saxaabi ka mid a saxaabada wuxuu leeyahay nabiga anagoo la soconno fa mararnaa bisibyaanin fiihim ibnu sayaad waxaanu soo marnay caruur uu ku dhex jiro ibnu sayaad sida caadada u ah caruurta marka ay dad waaweyn u yimaadeen way kala baxsadaan fa fara sibyaanu buu yidhi caruurtii waa kala baxsadeen wa jalasa ibnu sayaadin ninkii ibnu sayaad la oranayay waa uu fadhiistayba فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaad moodaa buu leeyahay saxaabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam kariha dalika inuu arrintaas dhibsaday faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa wuxuu ku yidhaahday taribad yadaak war gacmahaadu hooge oo maa taqaanaa duf ku baxe atashhadu anii rasuulu llah ma qiraysaa inaa anigu ahay rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhaahday laa maya hee bal tashhadu anii rasuulu llah adiga ayaa qiraysid inaad tahay rasuulka ilaahay cumar bna khadaabin oo ka agdhowaa ayaa wuxuu yidhaahday faqaala cumar bna khadaabin darnii yaa rasuul allah rasuul allah ii banay xataa aqtulah aan qoorta ka jare nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhaahday in yakun iladii taraa haddii kan aad u jeedid uu yahay falan tastatiica qatla ma awoodid dilkiisa ibnu sayaad walaalayaal ama ibnu saa'idna waa la yidhaahdaa waa axaadiistana saas ay ku sheegaan waxaa la yidhahda magaciisa wuxuu ahaa saaf culummadu waxay yidhaahdeen qisadiisu waa qiso aada u dhib badan abuurtayna dood badan sababtuna waxay tahay ma dajaalkii la sheegay masiixi dajaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii ka digeenba mise ma ahan laakiin waxaan shaki ku jirin inuu yahay beenaalo ka mid a beenaalayaasha culummada waxay sheegeen in xadiiskan sida imaamu nawowi fii sharxi muslim uu ku leeyahay in mataqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aan loo sheegin inuu yahay masiixi dajaal aan loo waxyoonin laakiin loo sheegay sifooyinkii masiixi dajaal ninka ibnu sayaadna waxaa ka muuqatay sifooyinkii masiixi dajaal ayaa ka muuqday saas darteed ayuu nabiga sala allahu alay wasalam cumar ugu yidhaahday yani ma awoodid inaad dishid laakiin waxaa jirta ninkan ibnu sayaad markii ay saxaabadii shaac baxday inuu ninkan dajaal yahay ayaa wuxuu isku dayay inuu isqariyo marka wuxuu dood ka dhigan jiray aniga muslim baan ahay dajaalna waa gaal dajaal caruur iyo waxba ma lahan oo mataqaanaa waa madhalays anigana caruur ayaan leeyahay dajaal maka iyo madiine ma galo aniga waan galay waxaasoo dhan waxay leeyihiin culummada sida imaamu nawowi uu leeyahay wax daliilo ugu sugan ma jiro maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sifooyinkiisa ayuu sheegay marka ay fitantiisa soo bixi doonto oo uu dhulka imaan doono marka qisada isma lahan oo ninkaas yani waa uu noqon karaa dajaal ayaa mataqaanaa halkaa ka muuqata saxaabada badankoodna way ku dhaaran jireen inuu yahay mataqaanaa yahay ninkaas ibnu sayaad yahay marka nabigana calayhi salaatu wasalaam kumuusan inkirin mataqaanaa inuu mataqaanaa ibnu dajaal yahay bal wuxuu leeyahay imaamu nawowi wuxuu leeyahay saxaabada mataqaana ana jaabir ibni cabdillah xalafa billah jaabir ibni cabdillahi baa wuxuu ku dhaartay ana bna sayaadin huwa dajaal ibnu sayaad inuu yahay dajaal wa annahu samica cumaru radia allahu canhu wuxuu maqlay cumar oo yaxlifu calaa dalika cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga agtiisa ku dhaaranaya ayuu maqlay falam yunkirin nabigana calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin subxaana allah walaalayaal sidaad ujeedaan waa arrin cajiiba weeye ilaahay subxaana wa tacaalana addoommadiisa waxyaalo badan ayuu ku imtixaamayaa waxaana mataqaanaa bini aadanka mar walba laga rabaa wixii saxiix ah ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday in aanu rumayno ayaa looga baahan yahay xadiis kale waxay sheegaysaa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam mar kale ninkaas la kulmay oo wuxuu ku yidhahday atashhadu anii rasuul allah faqaala wuxuu yidhahday huwa ashhadu anii rasuul allah marka ma qiraya inaa aniga rasuulka ilaahay ahay markaasu wuxuu yidhaahday maxaa aragtaa baa lagu yidhi markaasu wuxuu yidhi waa ninkii ibnu sayaade araa carshan cala almaa waxaan arkaa buu yidhi sariir biyo kor saaran faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam taraa carsha ibliisin cala albaxr waxaad aragtaa buu yidhi carshigii sariirta ibliis oo mataqaanaa badda kor saaran wamaa taraa maxaa aragtaa
maxaa kaloo aragta marka ibnu sayaad waxaa la sheegay inuu xataa ahaa nin faaliye ah oo waxyaalo badan loo sheegi jiray waxyaalo badan mataqaanaa heli jiray oo sixroole ahaa araa saadiqiina wakada wuxuu yidhi waxaan arkaa runyaal iyo beenaalayaal ayaan arkaa nabigana calayhi salaatu wasalaam uu sheegay marka annaga ka muslimiin ahaan waxaana laga rabaa in aan mataqaanaa asbaabta qaadano isla markaana wixii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaada aan rumayno qisadii ibnu sayaad ninkii looga shakiyey dajaal intaas ayaan kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala barnaamijka xiga waxaan ooga hadli doonaa qisadii dajaal oo sii socon doonta oo walaalkii naasir cadceedo idin leh ilaahay subxaana wa tacaala aniga idinkaba iyo muslimiinta o dhan dajaal ha ka badbaadiyo isla markaana caqiidada saxda nagu simo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh